sida muuqata xukuumadda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay dagaal ay kaga soo horjeeday Imaaraadka oo salka ku hayay hirdanka Berbera halkaas xukuumadda Imaaraad ku rabtay inay salgiyo military ka samayso dacwado dhowr ah isdhaafsadeen ay xukuumadda Soomaaliya Imaaraadka kaga saartay meelo kamid ah Soomaaliya sidoo kale waxay la wareegtay lacag 10 milyan oo lagu qabtay madaarka magaalada Muqdisho lacagtaas oo dawladda Soomaaliya ay shaki ka muujisay sida xukuumadda Imaaraad ku sheegtay lacagta waxa loo waday ciidamada Soomaaliyeed balse waxa arinta beeninaya xoog laga helay Soomaaliya oo sheegay in Imaaraadku gudaha Soomaaliya ku tababaro ciidamada 300 gaadhin kuwaasoo mishaarkooda sanadlaha lagu sheegay 1 milyan ka hooseysa xogo waxa inta ku darayeen in humaag xoogani ku gadaana waxa loola jeeday lacagta intaas leegan xukuumadda Soomaaliya hore loogu soo wargelin dacwad Imaaraadka ka dhanahay Soomaaliya u gudbisay ururka jaamacadda Carabta iyo golaha loo dhigay qaramada midoobay ayay Soomaaliya Imaaraadka ku eedeysay inuu ku xadgudbayo madaxbannaanida dawladda ee Soomaaliya iyagoo ula jeeda mashaariicda military oo ka waday Berbera oo Somaliland ah Imaaraadka ayaa isku dayay inuu gaashaanka u dururo eedaha Soomaaliya balse sida muuqata waxa looga guuleystay fakaarayaasha caalamiga ah isagoo dhawaan la hadlayay BBC ayuu wasiir dawladda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Anwar Qarqaash waxa uu sheegay in mashaariicda ay Berbera ka wadaan ay xukuumadda hore Soomaaliya oo galaanshiyo looga helay waxa uu sidoo kale sheegay in ay aqoonsan yihiin midnimada Soomaaliya waxa uu sheegay in aan haba yaraatay wax cilaaqaad la lahayn Somaliland isagoo mashaariicda Somaliland ay ka wadaan ku tilmaamay kuwa samafal iyo horumarineed waxa uu Soomaaliya ka codsaday in la galaan dood furan waana arrin muujinaysa inay ka soo degan halkoodii hore inkasta oo su'aal ka taagnay sababta Soomaaliya Imaaraadku dacwoonayso hadiiba hore oo galaanshiyo loo weydiistay haddana arrintan ayaa u muuqatay in Imaaraadku hadda garowsaday inaan Soomaaliya la'aanteed waxba uga qabsoomaynin Berbera haddii ay sidaas noqotana waxay arrintan dhabarjab siyaasadeed ku noqonaysay xukuumadda Somaliland oo ay beenoobayso sheegashadii ahayd in heshiisyo madax bannaan kalideed Imaaraadka la gashay heshiisyada ku salaysan maalgelinta dekedda Berbera iyo saldhigga military ee Imaaraadku doonayeen inuu Berbera ka samaysto ayaan xukuumadda Somaliland marnaba soo bandhigin waxaana laga qariyay heshiisyada rasmiga ah golayaasha sharci dejinta sidoo kalena saxaafadda lama tusin waa arrintan ayaa shaki weyn ay ka muujiyeen bulshada Somaliland dadka amurahan falaqaya ayaa tilmaamayay in jirto gacan saddexaad oo indhaha ummadda laga qarinayo heshiiska door ku lahayd inkastoo cidina si toos ah u tilmaamay in Soomaaliya tahay balse xisbiga ugu weyn mucaaradka Somaliland ee wadani ayaa meel adag iska taagay heshiiska Somaliland ee la gashay Imaaraadka saldhigga military magaalada Berbera ku saabsan waxaana hogaamiyaha xisbigaasi madaxweynaha Somaliland ku eedeeyay khiyaano qaran hirdanka u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Imaaraadka ee salka ku hayay saldhigga military magaalada Berbera Imaaraadku rabay inuu ka furto ayaa waxa muuqanaysa in Soomaaliya muquunisay Imaaraadka Idaada Maxamed Cabdi Sab TV Frankfurt